بسم الله الرحمن الرحيم maamulka degmada hodan iyo howlwadaag oo iskaashanaya waxaan maantay howlo kormeer ku imaanay wadada dhismaha ka socdo oo xiriirisa isgoyska Bakaaraha iyo isgoyska Balaagsi runtii wadadan shacabka dhibaato badan ay ku qabeen abaabulkii bulshada iyo iskaashigii la sameeyay shacabka iyo gobolka Banaadir ayaa waxa suurto gashay in wadadan dib u dhis lagu sameeyo runtii waxay noo tahay fursad muhiim ah inaan wadadan dhismaheeda aan goobjoog ka ahno dadkii oo ka shaqeeyay aan ka mid noqono maamulka gobolka Banaadir iyo ganacsatada isku howlay hawshan waan uga mahadcelineynaa waxaan ugu nimaanay kormeer hawsha shaqadu si u socoto maalin kasta goobjoog ayaa ka nahay dadkii hawsha fulinayaan nahay sidoo kale waxaan rabnaa ka maamul ahaan aan u imaano meeshan wadada wixii culays oo haysta inaan ka leexino waxaa jirta dad suuqa kamida oo miisas iyo kuraas soo dhiganaya oo wadadii la dhisayay dhexdeedii ka miisas suuq iyo dukaamo ka dhex furtay waxaan rabnaa dadkaas inaan u digno aan u sheegno wadadan dhismaheedu intuu socdan inaan waxba la soo dhex dhigi karin miisas iyo qudaar iyo waxba aan lagu dhex geli karin iyo ganacsi kale sidoo kale in dadka qashinka ku soo shubaa aan laga yeeli doonin waxaan rabnaa dadka shacabka halkan ku dhaqan ee aan maanta la joogno inay wadada qaybta ay kala yihiin ka ilaashadaan dadka ku dhex ganacsanayana ganacsiga ay ka dhex daayaan waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeyay cidii aan ku aragno inay wadada ku dhex ganacsanayso inaan tilaabo sharci waafaqsan ka qaadno waxaan bixinaynaa digniin wadadan oo dhismaheeda ay culayska ay leedahay dadku ay fahmi karaan haddana haddii kambanigi ama dadkii dhisay caqabad lagu noqdo dhibaatada ay leedahay waxaan rabnaa inaan uga digno in wadadan la baneeyo markii la dhisana aan dhexdeeda ganacsi dambe laga sameey karin hadda intii dhismaheedu socdana aysan suurto gelin in dadku si aan ku sii dhaxadaan oo laga shaqeey waayo waxaan rabnaa halkan aan rabnaa inaan aniga gudoomiyaha howlwadaaga ila taagan iyo maamulada dhammaan inaan awaamiir ka bixino inaan u xir saarnay dad la shaqeey doona kambaniga dhisaya maamulada waaxyaha degmooyinka oo labada waax oo noo qaabilsan meeshan iyo hay'adaha amniga la shaqeynaya waxay u amran yihiin wax kasta oo caqabad ah ama hor istaaga dhismaha shaqadan inay talaabo sharci waafaqsan ka qaadaan billaah.